السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامينا أصحاب تيدا الباجوكتو وإن سلامينا نخياري ووض نيجيستين خطبتي قدوميها قبل كجدو قدوميها قبل كجدو محمد عبد الله فرماجو ودقيسانيسين واحد جديد واحد عصب ما هايو وكحشودي إنه سوق هذا وهذا الكمارة اللي كرديو تامرك واحد دليل وتاي إنه معركتي السجن نفتي سوق هاي إنه فشل ماي وماشى معركتي وسكفديو وحو فائدة كوهين إنه أيوه قرتي ويعني عامسكو عامسي وده واي هلي كرديو waxay daliil u tahay inuu maaragtay uu fashil ninkaan fashil ma yahay wax walba siyaasadii dhaqaalihii iyo ilaahay ku roon yahay wax kasta uu ku fashilmay wax walba armay bulshada wax kasta uu ku fashilmay marka anaga go'aankeena waxa weeye waa kama soo laabasho go'aankeena gudoomiyaha gobolka Gedo waa inuu baxo وإنه سن بل إسكدافة مالين لوجو دارين مالين حال مالين لوجو دارين مال حتى هدي هو برلمان كشاكة أو إلى دكتور روي ماشي جو أيقن وقت هو دماده حتى بينو شاكان إيرادان وقت بانكو سيني صونغو بالبانكو سيني لو بلود أما السنة ميلها أنا وكميالينو نجو حانوا قنصرينا إنه يهاي قصوده إنه يهاي أرجعيسو إنه يهاي معركة قدومية قبل كجدو أنت أيان كامل سنانينا دجال أيان لقو قاضية حبط أيان لقو صارية هدو أنت سكوس كو حشون وايو أو حشون وايو أو إسأركي وايو إسقرن وايو حبط أيان كو صارينا سدا نجا معركة قرشان وياي بإذن الله الكريم لأن رالي كمان نغنينو أفر سنة كلا أما سنة كلا ودعة وبوبة وإلى دون رؤية هاي دل قرحيو وما تكيسن كرنو تاسو دعنا وأقنا هاي إنه جيستا سجى إنه جيستا قدوميها قبل كجدو محمد عبد الله فرماجو إنه جيستور دعان يو بوب كان يو دلال كان قرشيسن ولا صعنا مركا وحان ليه لهينا نجا ناديب للدونيو سومالي إنما إيو ولا التنمي للدونيو دلك واين ماركتي حالة يعني كلا الجلياء قدوميها برلمان كشيء يوم ماركتي حيل كبا التنمي دلسي وريجا إلا إيو ماركتي سومالي كودا شيء يسوع دولة كوميل جار على قدورنا يو فرماجي دلك يوحكوا عليي كوميل جار بكوا علي حالة كوميل جار أيو كوا عليي يعني حد ayaa hoos laga soo bilaabaya wixii la soo dhisayay ilaa iyo maaragtay muddadii hore maanta saa ku ciyaaray ilaa xilligii Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Abduqaasin uu ku ciyaaray marka walaalayaal gudoomiyaha gobolka Gedo wax maaragtay faa'iido uu leeyahay ma lahan waa fashilmay nin fashilan waaye waxaa ka muuqday waa arkaysaan wejigiisa waad arkaysay markuu khudbaynay billaahi ilaahay baad idinku dhaarshay waad u jeedeen wejigiisa iyo sida uu hadlay iyo nin wuxuu ahaa oo asaga dhan maaragtay argagax ka muuqda cabsi ka muuqata ilaahay doon rooyahay ayuu u eka lama daawan yani qofka yaqaano body language ka waa fahmi karaya marka afkiis waa soo qaban waayay inuu yiraahdo halii kordhiyo gudoomiyaha sida daraadeeda marka waxaan insha Allah anaga go'aankan uu yahay ama aan u sheegayna ummadda Soomaaliyeed hadaan ahay dadka canshuurta bixiyo hadaan ahay dadka dawladda lagu yahay oo dalkooda la jooga dalka hawiye Muqdisho la jooga waxaan go'aankan wuxuu yahay amaba ilaahay dudin rooyahay annagoo aan
go'aan ku gaarnay in gudoomiyaha gobolka gedo ama mangista farmaajo uusan afar sanad iska daaya bal xitaa la siinin bal iska daaya laba maalmood xitaa la siinin go'aankeena waa intaas go'aankeena waa go'an yahay mar hore ayaan u sheegnay caalamka oo dhan waa la wadaagnay qof walban waan u sheegnay لأنه ما أتكيسن كرنو أنك أنتانو دلال أنتانو حسوقة أنتانو إلهي دكور رؤية قرحية يو أنتانو ماركتي كنتو مشي حقوق دينا صبر أنتانا صبر كرنا أفر سنة وينو فلنتاي It's enough to enough 4 years 4 years أو إلهي دكور رؤية هاي ضاعة حسوق إلهي دكور رؤية هاي بركعين هنجبات عبورين wax alaal wixii xuquuqda aadanaha lidii ku ahaan nagu sameey afartaas sana ayaa nagu filan adkaysi afartii sana waxaa ugu dhiman 2 maalmood I think 2 maalmood inay ugu dhiman tahay 2 maalmood after 2 days farmaajo dalkan wuxuu ku joogayaa qaswadanimo inuu yahay gudoomiye gobolka gedo inuu yahay nin hogaamiye kooxeed inuu yahay gudoomiye Malaysia qabiil يعني السجا إيو كوا ماركتي كلا أو جامي كوحيدة ماركت ميليشيات كجامي ميليشيات وحبا ماركتي نوما كلا دوان اسكومت أيان ولا تعاملينا اسكومت أيان ماركتي ولا حساب تمينا بإذن الله الكريم وح ما أنت ماركتي أنا وإلهي جل الرؤية هاي عن قريبنا إنه مالها مركب عن لأن هاي ولا ليال سومالي ويس ديدي Soomaali waxa weeye waa isdiiday runta loo baahan yahay waa isdiiday gudoomiyaha gobolka Geda wuxuu yiri magaalada maaragtay balad xaawa ama Gedo ninaan marixaan ahayn ma xukumayo marixaan qof aan ahayn ma yeelanayo taa marka waxay daliil u tahay ninkan in lagu qasaariyay xilkan markii horeba been la sheegay oo been iyo turufe iyo ilaahay ku roon yahay iyo maxayati khiyaano lagu keenay ayay cadeynaysaa nin dhan oo madaxweyne sheeganayo oo garaadkiisa noqday gobolkayga ama qoladayda ama qabiilkayga noqday waxay taas marka daliil u tahay ninkan inuu ahaaba markii hore nin lagu qasaariyay xilkan nin maaragtay lagu sirmay oo ummadan ay ku sirmeen 100% oo wixii ballan qaadiya uu sameynay wixii been uu sameynay wixii turufa uu sameynay waxba ka jirin ba ilaahay ba idin ku dhaarshay ninkan gudoomiyaha gobolka Gedo 100 waxa weeye oo ballan qaad buu sameeyay hal ballan qaad oo fi malaha waad arkaysiin qof walba arki daawan kara oo arki kara qof kasta media ka buuxda ku qor meelaha maaragtay Facebook meelaha wax laga raadiyo ku qor ballan qaadiyadii farmaajo hada arki doona waxa ku soo baxaya 100 waxa ku soo baxaya oo ballan qaad hal xabo oo ka oofiyay ama oo maaragtay oo ka dhabeey ama ka rumay wallahi ma jirto marka ninkan waa munaafiq waa kadaab waa nasaab waa dajaalka waxa weeye zamankan waaye بانتنا وأوقتهين قفك هدو إذا حدثك وكذب وياهي ومن علامات المنافقين واي علامات المنافقين مركا وبين لو إصناعي والشعب يكور كفي وحاب يقدر أو أنا إلا هدب عن رميسان هاي وإلا هذا عنيق ماركتي عن ليا بنهاي شعبك الصوماليات سيدي u taageereen sida xagar la'aanta oo ilaahay ku rooya hay daacadnimada ay u soo baxeen oo daacadnimada maaragtay ugu soo banaan baxeen ee u soo dhaweeyeen ayaan ilaa hadda la yaabanahay qasaaradii lagu qasaaray ayaan la yaabanahay ilaa hadda lagu qasaaray 100 ballanqaad waayad hal ballanqaad uu oofiyay malaha haduu iska aamusi lahaa sida xasan sheekh oo kale
shariif oo kale nimankii maaragtay ka horeeyo iska aamusi lahaa oo maxay ahaatay waxba lama dhihi lahayn wuxuu raba iska sameey laakiin maalintii uu bilaabay ololo doorasho 4 sano ka hor oo inta maaragtay ninka maaragtay markii la doortay xasan sheekh 4 sano xasan sheekh xilka hayba wuxuu ku jiray ololo doorasho oo beenta adduunka ugu xun ninka been badan xayaatada noloshayda Soomaaliya iska daay caalamka xitaa inaan laga helin ayaan anigu maaragtay aan rumaysanahay waa been low asaab oo dajaal oo xaraami ah waaya wax uu maanta maaragtay ummadaan u haay malahan wuxuu rabaa haddana 6 bilood uu sheegayo ama sanad haddii wax looga daro wuxuu rabaa inuu boobo inuu hantidaan iyo khayraadkan hawiye inuu boobo ayuu rabaa boob ayuu rabaa marka lagama yeelayo man laga yeeli doono insha Allah lagama yeelayo man laga yeeli doono ilaahay idinkiisa kama yeelayno inuu 4 sano kala maaragtay anaga 4 sano iska daayo bal xitaa inuu boobo ama dilo oo naga caarsado wallahi inaanu ka yeelaynin kama yeelayno kamana yeeli doono insha Allah go'aan keenana waa cad yahay ballanteena waxa way caddahay February waxa way 8deeda waxa ka haray maalin baa ka hartay maalinta Isniinta caawa axad waay maalinta Isniinta waa 8 February wixii ka dambeeyo waa qaswada waa gudoomiye gobolka Gedo waa munaafiq wax kale oo ahsaan ah on dhaxyaalo anaga iyo asaga ma jireeyo marka walaalayaal waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ummad walaalo ah ummad wada dhalatay ummad ehel ah ninkan yaan lagu raacin beenta iyo munaafiqnimada iyo maxay tiraahdo ku rooyahay كذابنimada yaa lagu raacin baan leenahay hadii ay Soomaalinimo ay jirto walaaltinimo ay jirto ninkan yaan maaragtay ummadda loo gacan qabanin ninkan yaa ummadda maaragtay lagu sii deynin oo loo horkacin waxaan arkaynay dad badan oo Soomaali ah oo u saabinayo oo ku ay farmaajo muxuu qabtay farmaajo بالله عليكم يا اي شيء كره هل wax qabad oo farmaajo qabtay hal shay يا اي شيء كره ما جريو ما لها hal xabo oo qabtay ma laha waxyaabaha la sheegay waxba oo qabtay oo hawadii ba soo celiyay waxaan oo dhan qabiyay ahaayeen waa wax ninkan ila Xasan Sheekh Maxamuud oo sameeyay oo qabiyo ka dhigtay ilaa uu ku roon yahay ayay ahaayeen hal shay oo maanta lagu xasuusanayo oo aan xasuuq ahayn dhac ahayn boob ahayn iyo qabyaalad inuu maaragtay reerkiisa familkiisa ilal ku taxo dadkiisa maaragtay meel walba u dhiibo argaxiseed hadayeen xitaa al-shabaab mooye wax kale lagu haayo maanta malahan wax kale maanta lagu haayo oo faa'iido ah oo maanta laga dhaxalayo xitaa haduu tago wallahi ma jirayso ma jiraan marka waa nin munaafiq ah oo nolosha ka dhacay oo been low isnacay ah ummadda waxaan leenahay marka dadka taageerayo wallahi aakhir waa lagu su'aalayaa su'aal ba ku sugaysa waxaan lagu su'aalayaa maxaad u taageertay munaafiqa been lowga maxaad u taageertay intaan ayaa lagu su'aalayaa lagu dilaya ما بنانو إن nin حرام يا تاجرتو إن nin كذاب ومنافق إن تاجرتو ما في عنو الدين تنا ما قبته دقن كان Soomaaliyeed وناقصنا ما قبته إن nin maaragtay qabyaalad iyo nifaaq been aad ku taageertid ma banaan baa leenahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hal laga digtoonaado hal laga waantoobo hal la iska daayo ninkan waxa weeye waa tagay عمري تجين وحال هذا عيب لكم السوتيو
ninkan waa tegey waqtigiisa waa qaatay oo beenta ah ummaddii waa mara habaabiyey ummaddii waa isku diray qabiil buu isugu diray war annagoo dhan qabiil ma aqoonin farmaajo ka hor qabiil ma garanaynin qabyaaladda waa ka xishoon jirnay maantana qabiil baan caabudnaa maantana qabiil baa maxay ahaatay xataa diinteena qabiil baan ka hormarinaa intaasoo dhan waxaana baray ilaahay dad roon yahay oo noo keenayna baray mangista farmaajo intaa asagaana baray leebelkan maanta heerkan aan gaarsiisanahay in nin walba qabiilkiisa oo liis qabiila jeebka gashto oo qabyaalad maanta aan isku bedelno annagoo dhan waxaa noo nimuday noo keenay farmaajo shalayna 91 ummaddaan oo qabyaalad aqoonin oo xaalkeeda ilaahay og yahay dadkii qabyaaladda bilaabay nimankaanay ahaayeen farmaajo ciddiisay ahaayeen maantana iyagaa bilaabay iyagaa qabyaaladda bilaabay iyagaa ummaddaan maaragtay ilaahay dad roon yahay madaxa isku geliyey iyagaa yidhi reer hebel iyagaa yidhi maxay ahaatay gobolka annagaa leh fulaan annagaa leh ummaddaan madaxa la isku geliyey iyaga ayaa mas-uulka ah mas-uuliyadda iyagaa qaadi doona maanta waxaa jirta cunsuriyad qabiil baa jirta naceeb qabiil baa jira ummaddii way isnacday wax islaamaya ma lahan wax isla hadlaya ma lahan wax meel isla fadhiisanaya ma lahan wuu isnacsiyey xataa kuwii meelaha kala deganaa jabuuti iyo jigjiga iyo meelahay gaarisi deganaa xataa qabyaalad buu ku abuuray iska badaaya kuwii soomaali maryoolayda asalka ahaa iska badaaya kuwii kale maaragtay meelaha gumaysiyada joogay ayaga xataa cugdad buu ku abuuray marka ninkan ma habboona taageeradiis waa xaaraan ilaahay baa inooga xanaagaya nooga caroonaya ilaahay hadduu ku roon yahay in la taageero diinteena ma qabto munaafiq oo ilaahay hadduu ku roon yahay oo wax faa'iidaan lahayn munaafiq oo been iyo ilaahay hadduu ku roon yahay nifaaq mooye wax kale faa'iido leh oo uu leeyahay ma lahan marka dadkeena waxaan leenahay qulubtiin ilaah isku soo dhaweeyo farmaajo markuu baxo waxaan leeyahay qabyaaladda la iska daayo nin walba waxaa weeye خليها ترجع المياه إلى مجاريها وهاوي هالسكسو نقضو هالسامحو هالسعفيو وحي هورينا ما ركتي هلقا قدبو هدي صومالنا ما أنو باهننا أنا سكسو نقضو واحد سكو درسنو ودا قيبسنو هدي صومالنا ما اللي ديدي أو قرن صوماليات ولا تنما اللي ديدنا نوال بو قول كيس ما ركتي هاي الاشدو هانا اللي اسما ركتي هانا اللي درس دورو halas ilaaliyo oo sharafta iyo karaamada iyo qofka dariska hala ilaaliyo walaalka dadka walaalahana ma aragtay halaga shaqeeyo maslaxadooda ayaan leenahay annaga hadiiba ma aragtay kolayba ummadaan inay si sahal ah oo easy isku soo noqonayso wallahi uma malaynayo waayo meel fog baa la kala geeyay farmaajo meel fog buu kala geeyay farmaajo meel fog ayuu geeyey sidaa daraaddeeda walaalayaal waa in maaragtay ummaddaan insha allahu ay isku soo noqotaa oo xaalka sidii hore laga beddelaa